عبد القادر عبد الله بوغن عبد القادر عبد الباري عبد القادر عبد الباري magacaas magac badnay waa laga badan yahay magacaas magac naadir ah and poison on our plate waxa waaye bogan adiga qortay ma sha Allah inkastoo aan aqrinin laakiin hadana waxaan fiiriyay contentkiisa aad baan uga helay waxaan u maleynaa ka qaadan doono and 236 bog weeye marka bogan adiga aad qortay waxaad ku qortay af Ingiriis marka adiga targetkaaga ama dadka aad wax u qorayso eedartina fariintada gaarsiisa waa Soomaali marka haddii aan su'aasha kugu adkeeyo maxaad u dooratay inaad af Soomaali af Ingiriis ku qorto adigoo heli karay inaad af Soomaali ku qorto maadaama dadka aad wax soo gudbinaysa ay yihiin Soomaali runtii su'aal aad u muhiim ah oo dhowr jeer hore la ii weydiiyey runtii markaad af Soomaaliga wax ku qorisid ma kala laha Englishka qofka inuu wax ku qoro يعني level ah inuu labadooda wax ku qori karo ama xad aad luqad aad wax ku qori kartid qofka uu gaari karaa laakiin waxa jira waxyaalo qaar aad xulinaysid markaad wax qorisid sax ana af Soomaali waan ku qori karay laakiin xogaa hadan dhana si kale aan u dhigo horaan wax ugu qorin marka xogaa waxaan dareemayay culays ah in ayna sahlanaanin daraaseen iyo waxyaalo badan oo aan rabo inaan soo ururiyo research inuu igu adkaan lahayd oo mar baan isku dayay mana af Soomaali kuma hesheen Soomaali wax ma qorto Soomaali wax ma qorto marka waa dad oral society oo wax akhriskana runtii aad ugu yar yahay wax qoriskana runtii taariikhdooda ka dareemi kartaa ka garan kartaa taariikhdoodii oo runtii meel qaar iska hor imaanayso dadka marka qorista iyo wax akhrinta ay runtii aad ugu yartaa marka inaan daraaseen iyo research aan ku sameeyo xogaa ima sahlanaan lahayn saan dareemayo walow markii u horeysay aan isku dayay inaan af Soomaali ku qoro 7 page meelaha ku dhow aan af Soomaali ku qoray kadib waxaan dareemay culays inaan sii wadi karin marka sidii aan iskaga daayay sababta ugu horeyso ama ugu weyn runtii aan English aan ugu qoray waxa kamid ah dadkan la hadlayo booga oo ka hadlayo mujtamaca guud oo la hadlaya laakiin khaasatan wuxuu si khaas ah u la hadlaya dadka dhalinyarta marka dadka dhalinyarta dareemi kartaa 30 sano oo soo dhaafay dadka intooda badan waxbartay jaamacadaha ka soo baxay qofka ugu yar xataa form 4 ku jira ama secondary dugsi sare ku jira wax uu akhrin karaa marka luqadda kaliya hadda la isku fahmi karo marka laga hadlayo in wax la akhriyo waxaad moodaa inuu yahay Englishka runtii marka jacayl aan u qabo inaan English wax ku qoro mayna ahayn laakiin waxay ka dadkii wax u gudbiyo inaan dadkii wax u gudbiyo labadiina waa qorayaal baad tihiin qorayaashana aad baan ugu bogaadinayaa sababtoo ah waxaad tihiin dadka dhaxalka uga tagi doona Soomaalida wax kasta oo la dhaha waxa laga yaabaa inuu meel ku dhamaado laakiin qofkii qoraal ka taga taariikh buu ka tagaa dhaxal buu dadka uga tagaa marka labadina in bogaadinaya Sadiq isaga af Soomaali wax ku qoraa su'aal baan rabaa labadina inay weydiiyo miyay dhacdaa inta buuga editing ama tafatirka kadib miyay dhacdaa inaad u fariistaan buugkiina akhristaan mid akhrisaan كور مرة كاش اوكي والله يرتاها ويد على انا waxa aqoortay akhriso ma tafatirka kadib ina dakhniso ha wayd على يعني waa ku raaxaysanaysaa akhriskiisa like the next step waa garanaysaa waxa ka hadlayso okay ma runtii muhiim waay qofka marka la soo tafatiro editing lagu sameeyo ina one final proofreading ina ku sameeysid aad akhrisid حتى ما أهن مركا كدب أنا هذا فرصة أنا وهلا مسكحة بني آدم كميموري واسكا جران كرتها ما يلا كونتنت أما ما يلا مهم أنا وبهنا على جيا وأنا مركا قارين عندي بقول لابتوب إن أنسى آخرستو ولو أنا أقرأي لكن معلومات ولين أنا وجبهذا مركا قارة مركا دعي كرتين ريفرنس دب بوجا دب بقول لابتوب دبنا بقول لابتوب هذا بوجا مسكحة كم هو ذا هين كرتين لكن كونتنت قارن واحد حسوسن كرتها waxaad xasuusan kareen marka page-ku uu ku qoran yahay waa hadaad dhowr mar aad in badan aad akhrisay sababtoo page-kan numbering-ka waxa loo sameeyaa marka la daabacayo
marka kadib inta u dhaxayso waa iska yartahay صح laakiin dhowr jeer haddaad akhrisid ilaa waxaad xasuusan kartaa leenka uu ku qoran yahay كرمو page-ka. هوس بو ها meeshuu ku qoran yahay waa xasuusan kartaa laakiin ma xasuusan kartid qaabkaad u dhigtay iyo waxyaalo qaar content oo very marka aad si khaas ah aad uga hadasho kale marka waxaa laga yaabaa inaad akhrisid proofreading marmarka qaar muhiim weeye inaad ku samaysid. مي دعا مر قاركود انت maadaama aad aqrinaysaan inaad qodobada aad la dhacdo oo aad u farxdo ama aad dhahdo niyahow show meeshan waa Wala hadda ku soo waday may dhacdaa la marka qaar garanaysaa ku qanci weyda macnaha ama aad aad u dhacdo na bani ani marka qaar markaan buugtiisa u fiirinayo asla yaaba fikradan see ku qortay how do you Bas get cajab this gelin. idea ha idea see ku heshay ما شاء الله gorma heshay asla yaaba صح haddana marka qaar marka wix aragto asdaysan ina saas dhacdo ma ahayn halkani waa laga ama ina saas u qeexdo ma ahayn oo like sidaa inaad u dhigtid ya ma macnaha waxaa laga yaabaa in fikir kale kugu soo dhaco Ya, wax kaloo waqti xaadirka kasii aad fiican. aqrinayso Ya. ha inuu wax aad wax markii kaloo aadan kasii ku fiican dareensanayn kusoo dhaco ya way dhacdaa inaa meelo qaar oo runtii aad ula dhacaysid yani saad u dhigtay saad u haleyshay yani pointigaasi aad isla dhacdo aad la dhacaysid oo aad maasha allah is dhiirigelin ku siisay dhiirigelin adee laftirkaaga aad dareemaysid inaad at least wax inaad qortay way dhacdaa meelo qaarna runtii aad dhehaysid way jiraan haddaad sidaa kale aad u dhigi lahayd Ha. kasii fiicnaan lahayd marka labadaba way dhacdaa inta badan miyay dhacdaa inaa mar qaarkood dhibaatada iyo challenge ala kulantaan awgood aad buuga xidhaan maya bas that's it waa ka dhamaan ma qorayo buuga miyay dhacdaa macnaha challenge nooca mala kulanta ina hawl idinku adkaato waan ogahay marka buug la qorayo hawl adag fudud maahan waa inaad baxthi badan irshaad badan samayso waa inaad is ilaaliso sababta wax record ka harayo waaye inaad controversial ka ilaaliso mar qaar ma dhacda inay ku adkaato dhahdo that's it ma iga badaa challenge way jiraan ama caqabado oo runtii aad yani aad dareemaysid inay culays badan inuu jiro oo xataa ay kugu adkaanaysa marmarka qaar inaad sii wadid dhiirigelin horta qofka asaa iskugu filan haddaadan lahayn wax self driven ah ama wax ku hagaya oo hoose ah kaa dhex guuxaya haddaysa jirin way adkaanaysaa buugga horta inuu dad badan waxaad arkaysaa buugaan soo bilaabay bilaabaya ha waan bilaabayaa dad dhahay oo weli aan bilaabin dad waxaa jira bilaabay Dhexda uga laakiin tegay. dhexda uga tegey dad waxaa jira dhameeyey farqiga u dhexeeya waa un yani waxa markaa kaa dhex guuxaya sidaa markaa aad u rabtid inaad wax u dhigtid marka caqabado way jiraan oo runtii marmarka qaar waad u dhafraysaa waxaa dhacdo in dhowr saacadood 8 saacadood 6 saacadood inaad u fadhisid wixii aa qortay marmarka qaar ay kuu cuntimi weeyaan haddana aad iska bixisid haddii koow inaad soo bilowdid ma sahlana marmarka qaar in salaada subaxaad masaajidka aadida laga yaabo habeenkii oo dhan aad u fadhisid aad wax qoraysid marmarka qaar waxaa laga yaabaa hurdaya inaad wax kugu soo dhacaan kama gaartid inaad laptop iyo wax furtid ama meel mobilkiiad ku ordisaa not meesha qaybta ku qoraysaa si subaxii marka hurdo la-aan baa marmarka ugu dhacaysa waa big challenge marka life is full of challenge maxaa waaye labadiina way ku dhacaysaa su'aasha maxaa waaye mowqifka aad rabtaan inaad ka gaadhaan ama maxaad higsanaysaan maxaan higsanaynaa qoraalayaal baad tihiin waad dadaalaysaan buuga ku saabsan Soomaaliya qoraalka kusaabsan maxaad ka filanaysaan mustaqbalka hortaniyahow aniga mid baan doonayaa mid aniga keliya aan doonaya ma aha horta halka aniga kasoo jeedo waa gobolka waqooyi bari Kenya sax oo bulshada halkaas ku dhaqan luqadda Soomaaliya aad bay ugu fogtahay sax oo like way ku hadlaan balse ma qoraan hadday qoraan akhriskiiba waxaa ku yar dhibayo oo yani saas uma sii firfircoono marka waxaan rabaa bulshada halkaas ku dhaqan inaan tusaale u noqdo oo bulshada Soomaaliyeed waxay la qaybsanay karaan maadaama Soomaalidu waa Soomaali adduunka meesha doonta joog jinsiyadan doonta heeso jiritaankiisi ahaanshihiisi qofka inaad horumarisi luqadana marka asaasku waxay u tahay bulshadu waxa ay tahay dhaqankii iyo oo la gaarinbo waa luqadii bulshadu waxa lagu garanaya waa luqada waxa bulshada mideynaya waa identity waxa bulshada mideynaya luqada soo dhaqamadu waa la kala duwanaan karaa oo yani qoomiyad walba ama biyad walba dhaqan gooni oo Soomaaliya leedahay laakiin dhaqanka guud wuxuu noqonayaa luqadii iyo yani nidaamka Soomaalinimada iyo gabayadii iyo mataqaantaadii wixii Soomaalida lagu garanay taariikhii ya wax noocaasi marka luqadda way wada socdaan inta badan marka waxaan doonayaa inaan bulshadaas marka hore tusaale u noqdo
markii xigto waxaan doonayaa bulshada Soomaalidu si guud inuu wax u taro aniga buugta aan qoraa buug dhiirigelin ma ahan buug siyaasad ma ahan sidoo kale tan ma ahan buug dhaqaale waxaas ka waramay buugta aan qoraa waxay tahay waxa ka waramaya dhalinyarada uu ka waramaya wuxuuna qofkii qorana waa qof Soomaali dhalinyaro ah yani waa mowduuc dhalinyarada quseeyo u baahan arrimaha bulshada in laga wacyi geliyo in xog ay ka helaan wallahi horta qofka markuu wax qorayo ama sida caadiga ah inuu hiigsi inuu lahaado horta waa muhiim qof hadday noqoto inuu iska socdo waa dhibaato marka wax aad qortid way ka duwan tahay way ka miisaan iyo mug weyn tahay marka waxaan is leeyahay waxa ugu weyn oo runtii hadafka ama yoolka ugu weyn qofka uu yeelan karo markuu wax qoro oo inuu bulshadiisa mujtamaca inuu wax ku soo biiriyo dhaxal uga tago in waxyaalaha daldalooyinka ama dhaliilaha marka ay leeyihiin oo kale inuu wax ka bedeli karo waa hanka ugu weyn qof kasta oo damiir leh uu yeelan karo khaasatan markuu qofka uu wax qoro ani waxyaalaha aan rabo inaan wax ka bedelo waxaa ka mid ah dadka inay horta asaaska waxyaalaha waxbaa ka horeeye inay noqdaan dad waxbarashada impact ku yeelan karta qofka hadduu wax barto waa in laga dareemaa hab dhaqankiisii hab fikirkiisii hal abuurkiisii qofka haddii intaa laga waayo macnaheedu waxaa weeye intuu soo maray oo levels ah waxba kama faa'iido hal bacad lagu lisay marka dadka markaasi u fiirisid Soomaalida dhanka waxbarashada marka dadka wax way bartaan tusaale oo kale gobolka waqooyi bari NFD waxaa maro webi Garissa oo kale webiyaa maro oo permanent river kuwa kale waxaa jira seasonal Mandera maro dawa waxaad dareemaysaa wixii inay isku mid ka yihiin Soomaali farqi uma dhaxeeyo buugaan markaan qorayaa nin odaya wuxuu igu yiri waxaan ku iri dhowr meelaad aan rabaa inaan tago Hargeysa oo kale Garowe ilaa iyo Beledweyne dhowr meel aan u sheegay Soomaali ay digto Garissa marka wuxuu igu yiri waxba hasdaalin Soomaali dhibkeeda waa mid wax farqi oo sida uu weyn u buuran oo dhaxeeyo ma laha wuxuu yiri laba magaalo oo kale iska tag population-koodan uu fiican yahay waxaad ka soo qortid inta kale waa isla qabaan uu yiri wax farqi u dhaxeeyo mala waxba hasdaalin uu yiri safar iyo waa howl badan ay u baahan tahay qarash badan ha u baahan tahay marka waan sameeyay ninka odayga taladiisan qaatay markaan Soomaali tagay waxyaalaha aan soo ururiyay qaar marka saan xoga just to inaan xaqiijiyo nafteedana aan ugu qanciyo waxaan sameeyay marka phone call interviews oo fara badan waxaan wacay dhinacaan Boorama Burco meel walba Kismaayo meel walba Soomaali magaalooyinka waaweyn oo dhan telefoon phone call interview aan sameeyay waxyaalaha aan qoray ii qornaa wax ka duwan wax ii sheego waan waay marka ninka odayga ah waa nin way arag ah oo yaqaan dadka oo runtii aad ugu faa'iiday marka tusaalahan rabo Garissa oo kale inaan ku soo qaato Garissa waxaa mar webi waxbarashadan ka hadlaya mogto inay saameyn dadka ku yeelan wili oo laga gaajisay waa laga marin Garissa oo kale hadda webiyaa maro haddana webiga waa throughout hadduu abaar jirto abaar way socdaa biyihiis way socdaan baar dheer oo kale ama luuq oo kale Jowhar Beledweyne webiyaa maro waxaad dareemaysaa qaab nololeedka dadka Jowhar jooga Beledweyne iyo dadka Garissa wax badan oo farqi u dhaxeeyo ma laha biyaha webiga dadkaan way ka maran yihiin kama faa'iideystaan basala waxa loo keenaa meel kale baradhada loo keenaa the same thing dadka lama soo bixi karaan marka su'aashan isweydiinay waxay tahay haday waxbarasho in saameyn nagu yeelan karin yani 50 sano fursad ah inaad wax baratid hadaa haysatay haddana maanta waxaaga yaryarka ah aad soo saarin karin meel kale laga keenayo ka baahan tahay waxaad dareemaysaa marka Soomaali inay isku cilad tahay marka macnaheedu ma ahan kuwan waxbay barteen kuwaasna waa waxbarashadii uma fursad uma helin laakiin sidaan u samaysan lahaa saasa waa way of thinking our mindset sida u samaysan dadkii in wax bartaan laakiin wixii wax u bartay inuu waxba ku sameyn karin dad arkaysa beeraha cilmiga beeraha inay barteen laakiin maanta in ku soo beerin karin beer yaro magaalada xataa qayb ka qaadan karta waxay soo saarto laga cuni karo waa adagtahay
waxaa laga yaabaa isagoo cilmigiisa oo inuu cilmigii kambani shaqo u raadsado inuu meel kale u raadsado fiildigiisa ahaan inuu ka shaqeeyo asoo dhakhtara waxaad arkaysaa siyaasad ku jiro meeshii gaabkii inuu banaayay waxaad arkaysaa mid siyaasad soo bartay oo meel aan loogu talagelin joogo dadka marka waxaa jiro isku dhexyaac oo runtii aada u baahay oo la rabo in dadka laga wacyigeliyo marka waxbarashada aan ka hadlaynay waa impactga meesha ugu horeyso ummada hadday rabto inay horumarto 3 shay laga fiiriyaa waa waxbarashada asaasiga qaabkay u dhigaan siday rabaan inay wax u bartaan yacni manaahiij ama curriculum يعني بدلي كرت أفكار تودي دت سو صاري كرت دت فيو بتقبوا عافيمات قبا إن لها لو وحبرشة حر أفكري معنا وحبرشان توكسيك هنا وسخي سنين وحبرشة هذا عالم كنت هلا مد وسخي سن من نظيفة مد إذا نظيف كأنت بدل الله مهله مركا إن لها لو وحبرشة دت كسامين كويا لان كرتا دت كأبابين كرتا دت فيو وعافيمات قبا سو صاري كرتا إن لها لو لأنك وحبرشة رتي وحارة إن الملك جارسيو wixii walow aan naftirkeyga cilmi aqoon badan aan isku tuhmeyn laakiin wixii karaankeyga inaan dadka aan la wadaago midda labaad oo runtii bulshooyinka ay ku horumari karaan wax soo saarka waxaad cuni lahayd haddaad la soo saaran weysid nin gaajaysan gob ma aha waa gun waxaad cuni lahayd haddaad soo saaran weysid waa dhibaato aad waxba baranay waxnaad baranaysaa laakiin waxaad cuni lahaydna ma soo saaran kartid waa meesha la rabo marka dadka inay wax laga hago qofka hadduu gaajaysan yahay waa laga faa'iidaysan karaa Soomaali maxay amni darada iyo mashaakilka maxaa ku kalifay yani inta maxaan soo gaarsiiyay qofka hadduu gaajaysan yahay waa laga faa'iidaysan karaa meel walba la soo maraya waxa ku filan in wuxuu u baahnaa la siiyo way adkaanaysaa marka qof hadduu dhergan yahay asla reason gareyn kartaan waxna meel isla marin kartaan laakiin qof hadduu gaajaysan yahay way dhib badan tahay inaad meel wax isla dhigtaan midda saddexaad waa cadaaladda runtii cadaalad darada oo Soomaalida aad ugu baahday qofka haddii rabo inuu cadaalad uu sameeyo kaliya waxay kaga xiran tahay qofka uu sameynaa inuu reerkiisii inta meeshaasaaba lagu kala haraybo qofka way adkaanaysaa inuu cadaalad uu sameeyo haddii yacni qof reerkiisa ah meesha uu ku jiro way ku adkaanaysaa cadaalad darada marka aaday u baahday waxaa moodaa in la dhiirigeliyo inayn dhexdeynaba aan ka shaqaynayninba diintiin laga sii fogaanayo inay laga sii fogaanayo marka cadaaladda wax soo saarka iyo waxbarashada oo asaas wax soo saarka aan ku soo xasuustay hadda wadankan aan joogno waxa arkaysaa Nairobi waxay u imanayaan shaqo lacag oo kali ah ee gaajo ma keento qofka hadduu Nairobi nolosha la fahmayo wuxuu dhihi nenda ushago sababta ushago baad markii aadan tuulinka ku laabtan gobolada waxay cunaan way soo saartaan Kenya waxaan ku soo baranay moogtahay wax Kenyaanku waxay u aadayaan gobolada waxay ugu laabanayaan kamool wala sana waxay cunaan waa waxay leeyihiin beer baan leenahay waxaan cunaa soo saaranaynaa Nairobi waxaan u imaanaa lacag marka gaajo uma keento Nairobi waxa keenan lacag raadis kama cabsanayaan inay baahi u dhintaan laakiin Soomaaliga haddii uu lacag haysan baahi buu dhimanaya wax ma soo saaranayo macnaha waa saasay u egtahay waxaad moodaa dadka inay ka sii cararayaan they see dhinacan wax soo saarka beeraha and a primitive way of living dadka inay yani u muuqdaan dad badow ah sabool ah laakiin markaa laakiin si aa u fiirisid cagsi waaye haddaa si u fiirisid Maraykanka oo kale the kickstart oo ay ku hormareen waxaa ka mid ah agricultural transformation inay agriculture-gii wixii ay ka shaqeeyaan dalagii wax soo saarkoodii dadka markay waxay cun lahaa inay soo saartaan ay maaragtay ka fikiri karaan waxaa jira arin yar oo runtii aan rabo dadka dhageysanayay kolley idinkana waa soo baari kartaan waxaa jiro a hidden project Soomaali ku dul socdo wax soo saarka mashruuc qarsoon wax soo saarka tahriibta Soomaalian arag Soomaali ninka odayga 90 jirka if given a chance haddii fursad la siiyo ninka 90 jirka 100 jirka haddii fursad maanta uu helo inuu ku baxaya laakiin the same old man or from community kale ka soo jeedo ama Ethiopian ha ahaado ama Afrikaankan kale Kenyaanka ha ahaado hadda u tagtid wuxuu ku dhahan maandhow meeshan ku dhashaan jooga hadda waxay sameynaysaa cunuga yarka xoogiisa iyo dir laakiin anaga maxaad moodaa marka dib jacayl fara badan inuu nagu jiro waa mawduuc kale runtii u baahan in laga hadlo laakiin hidden agenda mashruucan oo daahsoon oo hadda Soomaali ku dul socdo wax soo saarka in lagala dagaalamo social media maandooriyaha waxbarasho xumida iyo manaahiijtan isku dhaxyaaca siyaasad xumida
yacni waxyaalo badan oo runtii waxaa jiro isku dhexyaacsan khaasatan social media oo runtii ku dul socda qaarna ayagaad moodaa inay iswadaan qaarna in la riixayo oo ama agendas oo hidden ah marka waxaa lagu yidhahdaa afka qalaad kale waa soo baari kartaan waxaa la dhahaa social engineering waxaa lagu waxaa lagu yacni waa dhaqan doorin ama ummad doorin saa rabtid u dhig dhaqanka iyo diinta iyo dadka in la dooriyo la soo saaro dad wada zombies ah dad aan kala garanaynin hore iyo gadaal meelay u socdaan iyo meelay ka yimaadeen wanaagii xumaantii dad iska socda in la soo saaro meesha loo socdana waa meeshaas marka waa mashruuc hidden ah runtii daahsoon qofkii rabana dabagal uu ku samayn karaa walow aan jeclaan lahaa dadka dhalinyarta jaamacadaha dhigta iyo kuwa wax bartay inay sii xaqiijiyaan ay dabagal ku sameeyaan aan 6 bilood ay ugu qaadatay inaan baarbaaro waxay la wadaagay arrinkan nin Soomaali ay aad u taqaano professor ah marba magaciisa inaan ka sheego laakiin ay Soomaali aad u taqaano wuxuu yiri waxyaalahan aad u jeedid ma aha wax iska socda gabar 10 sano ka hor gabar farjigeedii ka hadasha ma jirin Soomaaliya googasho ka hadasha galmo ka hadasha laakiin hadda waxaad arkaysaa wixii inay soo kordhayaan waa part of the social engineering-ka mashruuca hadda socdo ay qayb ka tahay marka waxaan jeclaan lahaa inay dadka sii baarbaaraan let's do more research arrinkaana inaan sii baarno dadka wixii dabaqabad u baahanna inaan dabaqaban badbaad aad iyo aad baa mahadsan tahay hal midaan ku darsan rabaa sax yarka walaalkeen qodobo badan buu taabtay sax qodobadaasi dadka aqliga oo saaxiibe wax badan bay ka fahmi karaan ama ka qaadani karaan oo ma ka dhaxli karaan aan hal qodob ku darsan karaa dhowrkii sano la soo dhaafay Soomaalidu horta adduun caalamka ku fiday oo maanta inta wadanka joogto ee inta caalamka ku fiday oo yani qurbo jooge ama halkan aan joogno ha noqoto ama dawladaha kale ama wadamada kale ha noqoto yani wax tiri ahaan saas isku dhamaan saas ma sii lahaan saasay tahay haddana dhammaanteen waxaan baranaynaa aqoon kala duwan waxaan baranaynaa like manhajyo kala duwan oo qofka Ethiopia wax ku baranayo Soomaaliya kan Kenya wax ku baranayo iyo kan Mareykanka wax ku baranayo isku manhaj ma ahan yani qaabka wax ku baranayo isku manhaj ma ahan waxa ay baranayaan isku si ma ahan qofka baraya isku si ma ahan ida marka maadaama qofku Soomaali uu yahay oo magac Soomaali uu wato oo ummad Soomaali la yiraahdo ka soo jeedo qofka intuusan wax baranin waxa ugu muhiimsan waxay tahay intuusan wax barashadaas u guudgalinbo inuu asagu wax uu yahay wasbarto aniga ah Soomaali waa maay qofka Soomaali dumar isgaranayo shakhsiyadiis waxay tahay wax mawaadi iyo diin u ah wax dhaqan iyo diin u ah waxa uu mataqaanta qaabili karin waxa uusan yani diintiisa dhaqankiisa ka hor imaanayo taariikhdiisa asalka ee uu garanayo wadankiisa uu garanayo yani qof wuxuu noqonayaa aqoon tiidhaneed ba kala bar haysto qofka dumar dhaqankiisa diintiisa wadankiisa garanaya kala bar aqoonti uu haystaa waxa kale u soo haray waa ziyaado uu ku ziyaadsanayo ama aqligiisa ama aqoontiisa uu ku sii balaarinayo ana marka aqwadan haystaa waxay tahay ana waan isgaranayn wax aan ahay dadka aan ahay isgaranayn ba aqoon kala baranaynaa oo taariikhda wadamo kala baranaynaa oo aan baranaynaa manhajyo aan garanayn asalkoodu waxay yihiin marka isku soo qariyaa ida marka waxbarashadaasi inta aan mataqaanta ku sii jirno sanada dhowr sano fikirkeenu isii bedelaya markaas waxa arkaysaa baarlamaanka Soomaaliya ama dadka Soomaalidu kan halkan Soomaaliya Kenyaati joogo kan Ethiopia joogo kan joogo Mareykanka wax fikir yani wadaagaan ma lahan ama wax fikir mideeyo ma lahan dhamaan fikrado kala duwan wataan asalkana waxay soo barteen ama manhajka ay soo barteen asal way laakiin haddii qofka asay isgaran lahaa aqoontiisu macnaheedu yeelan lahayd waxna way tar lahayd manhajkaas aan ku soo xasuustay waxa cajiib waxaad arkaysaa markii dhamaanteen Kenya wax ku baran oo marinayaa marka Kenya marka wax ku baran waxaan barayaa qabiilada Kenya si u kala baxbaxaan wadanka resourceska maxaa laga helaa dadkii soo halgamay dadkii gumeysiga la shaqeeyay collaboratorska ahaa waxaa la soo baray taariikhoodii qabiil kasta wuxuu ka soo jeeday yaa halgamo u ahaa haliyay u yaqaanaan ama hero u yaqaanaan kabakana la baray intaas ma kabaka motesi kabaka mwanga waxaan la baray Mau fighters macnaha marka waxaan la yaabi jiray marka Afrika la soo qabanayo wadamada resources kale
ama wadamada resources maxaa soo dhahaa wadamadan micnaha wax soo saar resources kale ama shidaal ha ahaado ama waxa le micnaha minerals minerals wuxuun leh wadamadan ay maad wax dhoofin kara waxa uu leeyahay wadan hebel dahab baa laga helaa South Africa diamond baa lagu tagaa Botswana diamond baa lagu tagaa Kenya waxa laga helaa coffee iyo petroleum iyo tea iyo shidaal iyo waxbay sheegayaan marka chatka aan fiir markasta Soomaaliya fiirin jiray arana ila dareensantii laakiin Soomaaliya waxa la siiyo waa waxa lagu leeyahay moos iyo geel moos iyo livestock wax kale lama sheegayo lama dhahay dhulku uu dihin yahay oo seel sheegay dhulka 70% waa dhul beereed fatayl ahaa lama sheego maxaa lagu abuur karaa lama sheego shidaal baa la sheegaa ma la sheego inkasta Soomaaliya buuraha ku yaal lama sheego wabiyada lama sheego dalxiisku wuxuu soo jiid lama sheego badda lama sheego laakiin waxa laga chatka marka fiirnas Africa in Kenya tusaalahan laga qoro ama Tanzania ama Uganda laga qoro inta macdan ama inta wax laga heli karo wadankaas ugu yaraan 20 laga helo dhibcood qaar aan garanaynin si loo soo qaadan garin waxay yihiin waa inaad dib u fiirso macnahoodii waxay loo isticmaalo Soomaaliya shan xabo loo soo qoro la dhaho livestock iyo moos iyo waxyaalaha marka taan ku sheegay qofka marka waxa cajiib ah dadka dhalinyarada ee Soomaaliya wax ku bartay laftooda inaan la barin resourceski waxa ay yihiin taariikhdoodii iyo waxaasi inaan la barin qofka wax kale la baro macnaha maraykanka ugu muhiimsan wax soo saarka xataa intaan la gaarin qofka ahaanshihiisa the identity Soomaalida waxa ugu weyn oo hadda dhibaatooyinka haystay ka mid tahay chapterka u dambeeyay buugga aan kaga hadlay identity crisis and its language and culture dhaqanka iyo luqadda oo Soomaaliga oo runtii gabaabsi ah markaas uu fiirisid dhaqankii horta ka sii baxaya luqadii waxa lagu daray boqolka luqadood oo runtii waxay ku jirtaa at the top Soomaaliga meesha qaybaha ugu horeeya ku jirtaa sanadka ama qarniga soo socda laga baqay inay sii dabargo'do wax ku hadla la waayin doono because daraasiin ma kobcayo wax badan oo maaragtay isku hayn badanna ma jirto marka way adkaanaysaa in la helo dadna waa luqadoodii meel waxaa jirta aan ku yiri boqolka sano soo socda waxa laga yaabaa Soomaali uu la waayo ani 100 sano xataa ma gaarsiinayeen because daraasiinta markaas ay u fiirisid waxa laga yaabaa 100 sano inaan gaarinba sida hadda ku socdaan hadda waxaad arkaysaa dadka qurbo joogta Soomaalida caruurtoodii kulama hadlaan af Soomaaliga hooyada waxa laga yaabaa inay isku dhibayso